بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan halkani waa tabin kale oo kamid ah barnaamijkeena subaxnimo ee saaka oo aynu ku lafagurayno wararka ugu dambeeya ee gobolka dhacdooyinka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda waa 19 May sanadka 2026 qodobada idinahayana waxaa kamid noqon doona waxaa la howlgeliyay nidaamyada difaaca ee magaalada Asfahan oo kamid ah magaalooyinka sida gaarka ah ee Mareykanka indhaha ugu hayo xilli laga baqayo dagaal inuu bilowdo isla markaana guud ahaanba wadanka Iran laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan maxay qorayaan warbaahinta Iiraaniyiinta saaka maxayse tahay waxyaabaha waaweyn ee soo kordhaya qodobada kale oo aan idin hayo qiyaarta ay nala socotay oo aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa kamid ah weerar hubaysan oo ka dhacay gudaha wadanka Turkiga dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inay jiraan haddaba yaa ka dambeeyay weerarkaasi maxayse ka yiraahdeen warbaahinta wadanka Turkiga oo arrintan si gaar ah u faaqidaya wasaaradda difaaca ee wadanka Iran waxay ka warbixinaysaa dhaqdhaqaaqa xaaladda gobolka xilli Trump uu xalay ku sigtay inuu weerar ku qaado gudaha wadankaasi sida wararku ay tilmaamayaanba la helayo dalka Mareykankana waxa uu muddo 60 maalin u ogolaaday dawladaha nugul oo xagga tamarta dhibaato adag ay ka haysato inay iibsadaan shidaalka wadanka Ruushka kadib cunaqabatayn muddo dheer wadankaasi saarnayd arrintani waxay ka dambaysaa sida Washington ay ku dhawaaqday inay uga gol leedahay dhimista shidaal la'aanta dunida ka sii dhacaysa ee sababta uu yahay dagaalka bariga dhexe qodobada ugu dambeeya wararka gobolka iyo waliba xiisadan sii kordhaysa ayaan idin la wadaagayaa khiyaarta ay nala socotay soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsan aan ku horeeyo gudaha wadanka Iran dhaqdhaqaaq xoogan ayaa ka jira qaybo kala duwan oo kamid ah wadankaasi iyadoo magaalooyin istiraatiiji ah nidaamyada difaaca lagu soo waramayo tan iyo xalaba inay ku jiraan howlgal gaar ah kadib markii la ogaaday Mareykanku inuu qarka u saaran yahay weerar suuragal ah oo lagu qaadi karayo wadankaasi Asfahan waxay kamid tahay magaalooyinka ay ku yaalaan xarumaha nuclear-ka ee ugu muhiimsan Trumpna uu si gaar ah indhaha ugu hayay warbaahinta dawladda Iran ee Mehra ayaa ku waramaysa in nidaamyada difaaca cirka la howlgeliyay magaalada Asfahan ee bartamaha dalka Iran iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin shacabka sababta keentay arrintaasi sida ay warisay wakaaladda wararku ee dalkaasi dhawaaqyada nidaamka difaaca hawada ayaa laga maqlay magaalada taas oo sare u qaaday walaaca ku saabsan amniga gudaha Iran xilli ay sii kordhayaan xiisadaha gobolka iyo hadallada adag ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran ilaa iyo hadda ma jiraan war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Iran ama ciidamada qalabka sida oo sharaxaya waxa sababay howlgalkan iyo difaacyada cirka magaalada Asfahan ayaa ah goob istiraatiiji ah oo muhiim u ah dalkaasi maadaama ay ku taalo xarun military warshad difaac iyo xarumo la xiriira barnaamijka nuclear-ka ee dalka dhacdadan ayaa loo arkaa inay tahay mid halis gelinaysa guud ahaanba gobolkaasi iyo waliba in laga baqayo dawladda Mareykanka mar kale inay weerar ku qaado gudaha dalkaasi dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xuutiga oo gacan saar la leh dawladda Iran kana mid ah saddexagalka wax iska caabinta ee dawladda Tehran ay maalgeliso ayaa ku dhawaaqay xalay haddii weerar lagu qaado dawladda Iran in dagaalka gobolka uu ballaaran doono isla markaana ay weerari doonaan danaha Israel iyo Mareykanka ee gobolka bariga dhexe tan ayaa ka dhigan dagaalka inuu baahayo haddii dawladda Mareykanka sida Trump uu damacsan yahay ay suuragal tahay weeraradu inay u bilowdaan hogaamiyaha kooxda Xuutiga wadanka Yemen Abdimalik al-Houthi ayaa sheegay in kooxdiisu ay si buuxda ugu diyaar garowday dhinaca militariga haddii Mareykanka ay qaadaan baalayri weerar cusub oo ka dhana wadanka Iran khudbad muuqaal ah oo laga sii daayay telefishinada dawladda Xuutiyiinta ayaa waxa uu al-Houthi ku sheegay in xaaladda gobolku ay gali doonto marxalad halis ah haddii xiisada u dhaxaysa Washington iyo Tehran mar kale ay sii kororto oo dawladdaasi Iran weerar lagu soo qaado waxaan diyaar u nahay in dhammaan isbedelada iyo xaalad kasta oo cusub oo ka dhalata gardarrada ka dhanka ah Iran ayuu yiri hogaamiyaha Xuutiyiinta hadalkan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu hakiyay
weerar la qorsheynayay in oo ka dhan ahaa wadanka Iran oo ciidamadiisa uu ku amray inay diyaar sii ahaadaan weerar ballaaran haddii aan la gaarin heshiis degdeg ah oo dowladda Iran ay aqbali karayso. Al-Houthi waxa uu sidoo kale sheegay kuna eedeeyay Mareykanka in cadaadis dhaqaale iyo xanibaad ay ku hayaan wadankaasi isagoo sheegay in tallaabadaasi ay saameyn yeelan doonto dhaqaalaha caalamka. waxa uu carabka ku adkeeyay in taageerada Mareykanka ee Israel ay tahay sababta ugu weyn ee soo horinaysa xiisadda gobolka isagoo ka digay baaliri dagaal cusub oo mustaqbalka saameynaya Qatar aad u xoogan ku yeelan doona. Xuutiyiinta ayaa lagu tilmaamaa saddexagalka wax iska caabinta ee gacan saarka la leh dowladda Iran oo hadda wajahi karaysa weerar uga iman karaya wadanka Mareykanka. wararka ka imaanaya wadanka Turkiga ayaa ku waramaya in weerar nin hubaysan uu ku qaaday goob ay ku sugnaayeen dad rayid ah la sheegay in ay ku dhinteen dhowr qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen. arrintan ayaa Ankara ku tilmaantay fal aan loo dul qaadan karin oo loo baahan yahay si degdeg ah jawaab looga bixiyo. dowladda Turkiga ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqday in wadankooda uu la kulmay weerar uga imaanaya baaliri nin hubaysan oo waxyeello gaarsiiya dhowr qof. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay 8 kalena waxay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu risaas ku furay maqaaxi ku taala meel u dhow magaalada Mersin ee koonfurta wadanka Turkiga. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa xaqiijiyay khasaaraha sida uu sheegay in 6 muwaadin ay dhinteen weerarka halka 8 kalena uu dhaawac soo gaaray ay jiraan oo hadda lagu dabiibayo cisbitaalada. sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha ninka ayaa looga shakisan yahay weerarka ayaa marka hore gudaha u galay baaliri maqaaxida isagoo aan wax hadal ah oran kadibna uu si kadisa u bilaabay rasaasta taas oo dishay milkiilihii maqaayada shaqaale u shaqeynaya iyo sidoo kale isagoo dhaawacay dhowr qof oo macaamiil ah. waxay intaasi ku dareen in tuhmanaha uu sii watay rasaasta inta uu baxsanayay isagoo dilay baaliri 2 qof oo kale oo jidka ku sugnaa oo ay ku jiraan nin xoolo dhaqato ah oo aaga maraya goobta ay wax ka dhaceen. booliiska wadanka Turkiga ayaa bilaabay howlgal baaritaan ah oo lagu baadi goobayo ninka la tuhunsan yahay iyadoo muuqaallo warbaahinta laga sii daayay ay muujiyeen diyaaradaha qubaatiga u kaca iyo gaadiidka gurmadka degdega ah ee ka howlgala aagaasi oo sameynaya baaritaanka. warbaahinta dowladda Turkiga Anadolu News Agency ayaa sheegtay in tuhmanaha oo 37 jir ah horey loogu eedeeyay dilka xaaskiisii hore. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Turkiga oo aad uga walacsan yahay dhibaatooyinka iyo weerarada sii kordhaya. madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso adkeynta amniga iyo waliba qaadashada hubka taasi oo qataro waaweyn ay hadda dadka kala kulmayaan. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa aqbashay in shidaalka wadanka Ruushku ay iibsan karaan muddo 30 maalmood oo dheeraad ah. dowladaha nugul ee saameynta ay ku yeelatay tamarta dunida iyo shidaalka gabaabsiga ah wixii ka dambeeyay weerarka ka dhacay gobolka Bariga Dhexe. wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa soo saartay ruqsad guud oo kumeel gaar ah oo socon doonta muddo 30 maalmood ah taasi oo ogolaanaysa in qaar ka mid ah dalalka nugul ay helaan baaliri shidaalka Ruushka ee hadda ku xaniban badda. xogayaha maaliyadda ee dalka Mareykanka Scott Bessent ayaa sheegay in tallaabadan loogu talagalay in lagu taageero dalalka aadka ugu nugul dhinaca tamarta isagoo sheegay in lagu hortagayo qalalaasaha suuqa shidaalka ee saameynta weyn ku yeesha caalamka. Bessent ayaa qoraal uu ku daabacay Berta X ku sheegay in ruqsadda 30 maalin ay sii socon doonto dabacsanaan dheeraad ah maadaama wadamo badan ay u baahan yihiin isla markaana shidaalka uu sii wadi doono Mareykanka uu sii wadi doonto bixinta ruqsadahan marka ay lagama maarmaanka u tahay. tallaabada waxay gacan ka geysan doontaa xasilinta suuqa shidaalka ee cakiran waxaana ay xaqiijin doontaa in shidaalka uu gaaro dalalka ugu baahida badan xagga tamarta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxweynaha aan idhaahdee wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanka. sidoo kale maamulka Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan uu qayb ka yahay
dadaal lagu yareynayo saameynta ka dhalatay carqaladaha sahayda shidaalka gaar ahaan iyadoo xiisada gobolka iyo xirnaashiyaha marinka Hormuz ay noqdeen tan ugu weyn ee hadda caalamka uu dhibaatada xooggan kala kulmayo. Tallaabadan ayaa muujinaysa isku day Washington ay doonayso inay cadaadis ku saarto Moscow iyadoo weli laga hortagayo qalalaase ku yimaada suuqa shidaalka caalamiga ah iyo kororka qiimaha shidaalka oo saameyn ku yeelan kara dalalka saboolka ah iyo weliba macaamiisha Mareykanka sida lagu tilmaamay hadalkan.